allaha u naxariistay waxaa maanta qubuuraha baar caleen ee magaalada Kismaayo lagu aasay Suldaan Buule Cabdi Caalin oo ka mid ahaa nabadoonnada Jubbaland ee soo aasay maamulka Jubbaland. Nabadoonkan ayaa waxa uu ka mid ahaa salaadiintii soo xulay ergadii dooratay madaxweynaha Jubbaland iyo sidoo kale xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Suldaankan allaha u naxariistay wuxuu ka mid ahaa dadkii loo xilsaaray in ay qabtaan shirarkii dib u heshiisiinta ahaa, wuxuuna suldaanku u geeriyooday xanuun ku soo booday. Aaska marxuumka ayaa waxaa ka qayb galay xubnaha baarlamaanka ee dowlad goboleedka Jubbaland, wasiirada iyo sidoo kale salaadiinta Jubbaland. qaar ka mid ah ugaasyada iyo salaadiinta Jubbaland ayaa marxuumka iyo eheladii uu ka geeriyooday tacsi u diray.